السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو هذا دمانتين بقى. soo dhawaada xaaladihii ugu dambeeyey magaalada Jigjiga iyo waraysi aan la yeelan doono dadkii xogagaalka ahaa ee u dhundaloolay ama la socday xaaladahaasi Jigjiga. madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo xulfadiisii wasiirada ahaa oo la socday ayaa saddexdii habeenimo ee xalay toole magaalada Jigjiga laga kaxeeyay waxaana qaaday ciidamada militariga dowladda federaalka Itoobiya isaga iyo xubno wasiir ah oo xukuumadii hore ee ka talinaysay deegaanadaasi Soomaalida Itoobiya kadib markii uu iscasilay muddo ka hor shalay toole. wararkii shalay la soo saareeyay propagandada ku salaysnaa iyo social media la isla dhexmarayay waxay noqdeen war seer iyo raatoona aan lahayn xaqiiqada iyo waaqaca ka jira deegaanada. waxa weeye xaalad degdeg lagu soo rogay qacan biran ay ku hayaan militariga federaalka Itoobiya ee la imkana ku soo qulqulaya deegaanada Soomaalida. geesta kale ciidamada new booliska loo yaqaanay deegaanada ka shaqeynayay Soomaalida iyaguna waxay ku xareysan yihiin xaryahooga oo gaarka ah oo lagu ilaalinayo sargaal ugu sarreeyay ciidamadaasi ay ka amar qaadanayeen isaguna waxa uu ku xidhan yahay xero duleedka ku taalla Jigjiga oo loo yaqaano Garabcas isaga iyo madaxweynihii hore iyo xubno wasiirada. sidoo ogsoontiinba maanta waxaa hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Itoobiya Master Ahmed Shide ahna afayeenka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaanu ka hadlay Jigjiga xaaladeeda iyo dowlad deegaanka arrimaheegina oo ka hadlay. waxa uu sheegay dhibaatooyinkii iyo arrimihii ka dhacayba in dib loo xaliyay la dhameeyay in ciidamaduna ay qacan bir ku hayaan deegaanada Soomaalida Itoobiya oo dhan. waxa uu sheegay in cid kasta oo dambi ka gashay qaranka, cid kasta oo sharciga ku xadgudubtay, cid kasta oo soo qabta suldaanka cid kasta oo dambi ka gashay qaranka, cid kasta oo geysatay shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in la horkeeni doono sharciga oo la waafajinayo oon cidna laga saamaxayn. sidoo ogsoonnahay meheradihii iyo ganacsigii Itoobiya waliba gaar ahaan magaalada Jigjiga ma shaqeynayaan oo xidhan yihiin. laakiin wararkii propagandada ahaa wiilkii dhalinyarada ahaa ee BBC-da loo sheegayay in madaxweyne loo doortay taasi waxay noqotay wal aan waxba kama jiraan oo sal iyo raatoon lahayn iyada oo la sugayo in odayaasha deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhan iskugu yimaadaan dhammaantoodba. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawow suldaan, bal waxaad nooga warantaa xaaladihii ugu dambeeyay deegaanka maxaad kala socotay? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore aad iyo aad baan u salaamaya bulshada Soomaaliyeed ee muuqaalka daawanaysa. nabil cali adigana aad iyo aad baan ku salaamay gudoomiye runtii aad iyo aad baan u bogaadinaya hawsha aad bulshada Soomaaliyeed u wado hogaamiye weyn oo runtii dhalinyaro ah oo aragti dheer baa tahay. dadaalada nabad xoojinaya ee haddii aan ka dhigay geeska Afrika oo runtii aad iyo aad baan soo dhaweeyay wadda geeska Afrika ku wada dhaqan. haddii aan wax yar ka iraahdo xaaladihii ugu dambeeyay ka jira dalkaas Soomaali galbeed, wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan in hadda wararkii ugu dambeeyay la isla xaqiijiyay waxay sheegayaan in la qabtay ninka la yiraahdo Cabdi Ilay oo gacanta lagu dhigay. taa macnaheedu waxa weeye in mujrim weyn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kullu qoom laha fircoon, qoom waliba wuxuu leeyahay ama nation waliba qof fircoon oo kala. marka fircoonkii Soomaalida 10kii sanadood ugu dambeeyay ku caanka baxay laynta ummadda Soomaaliyeed, dumarka iyo carruurta iyo dhalinyarada iyo weylkaan u kala aabayeelaynin waliba isagoo afkiisa ka qirtay in maaragtaane waxa weeye uu fulinayo arrimahaas oo dhan uu sameeyo just because inuu fuliyo amarada kaga imaanaya taliyihii ciidanka sirdoonka ee dalka Itoobiya oo ka soo jeeda qowmiyadda Tigray. anigoo ka xun qofka noocaas in dad taageereen shal oo ay
maalmahan aad arkaysay dad fara badan oo laabta isaga garaacayo sida axmaarada weyneyda iyo cabdiinay tegiyey tigray tegiyeyda ayaan arkay ilaa shalay oo meelo badan kasoo hadlay ilaa soomaaliya aad iyo aadna runtii aan la yaabay sababtaa waxa weeye qofka bini aadamkii damiir buu leeyahay filter baa loo waxaad taageeraysa iyo waxaad aadan taageeri karin waa in la kala hubsadaa loo baahayay marka markaad taageerto qof isagoo afkiisa ka qirtay inuu ahaa yes man waxaa la faro xubno wasiir ah oo xitaa la socday inay ku xidhiyeen xerada garab cas loo yaqaan dad badan baa lala qabtay anigu wasiirro uguma yeeri kare carruur yar yar oo uu ka ururiyey deegaankaa soomaali galbeed oo midba uu wax ku magacaabay oo dhowr iyo 20 jir ka ugu weyni 30 jir yahay oo waxa weeye dhaqankoodii ay lahaayeen waxaan caddaynaya dadka ummadda soomaaliyeed ugu dhaqanka wanaagsan diin ahaan iyo culture ahaanba inay ku nool yihiin dhulkaa soomaali galbeed dadkii noocaas ahaa 10 sannadood waxaan maqli jiray waxa hebel na baray wuxuu na baray baa nagaga daray waxa ku dhacay culture change weyn baa ku dhacay ummaddii halkaa deganayd carruur yar yar baa la ururiyey oo la yidhi mas-uuliyiin baa tihiin oo wuxuuna caayay oo wuxuuna habaaraya oo wuxuun laynaya marka shakhsiyaadkii yar yaraa noocaas ahaa ee canaasiirta ahaa oo ku hoos urursanaa ee aabba u yaqaanay aabba lahaa dad islaama baynu nahay waa xaaraan dembi weyn wey laba xadiis nabiga ka sugan baa salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu inoo sheegayay qofku inuu yidhaahdo waan riyooday waayo riyada saalixada ama wanaagsani ama haddii alla ka dhigayo saxda ah ee aan dee qarawga iyo shaydaanka ahayn waxa weeye inay waxayoo kala tahay wey marka qofku waa xadiis saxiixa wey qofku hadduu yidhaahdo waan riyooday isagoon riyoonin iyo hadduu yidhaahdo qof aan dhalin baa i dhalay ilaahay in allah laa yadur baa limnu yowm alqiyaama maalinta qiyaamaha ilahay subxana wa tacaala xaggiisa ma fiiriyo baa macnaa raxmadda uma fiiriyo waa dembi aad u weyn wey aabba carruurtii lahayd ee yaryarada hoos datee dadka leynaysay ee inta la laayo ku dul dhaantaynaysay intay laayaan hooyooyinkood iyo waalidkooda laayaan ku dul dhaantaynaysay waa lala qabtay waxaa ka mid ah ragga lala qabtay ninka la yidhaha sanyare hoggaanka sirdoonka iyo ilaalada gaarka ee cabdi ilay ahaa isla markaana leynta iyo baabiinta ummadda soomaaliyeed qaabilsanaa ninka la yidhaha sanyare oo ay qaraabo dhowna ahaayeen sidoo kale waxaa lala qabtay ninka la yidhaha cabdi labadore marka rag badan oo noocaas ah oo rag yaryar oo da-yara ahaa oo ninkaasi uu ku shaqaysanayo taliskii tigreegu ay isticmaalayeen waayo tigreegu waxay ahaayeen niman aad iyo aad runtii diyaar garaysan bay ahaayeen waxay doonayaanna garanaya marka waxay doorteen dadkii dabaajiirta ahaa bay ururiyeen ciyaar suuqa ahaa ee magaalada dadka akhlaaqda ka xumaatay ummadda aan wanaagooda ka sheegeeyaan oo dadka faali ugu fiican bay ahaayeen ama yihiinba ilaa iyo hadda waayo waxaa ka yimi halkaas culimmadii waxayna baray oo dhan anigu 3 nin oo culimmada soomaalida haddii alla ka dhigayo aan mid walba noloshayda waqti u helay inaan ka barto halkaasii ka soo jeeda sheekh cumar faaruq allah naxariista deegaankaasuu ka soo jeeda shariif cabdinuur halkaasuu ka soo jeedaa ninka la yidhaahdo haddii alla ka dhigayo sharxaan cabdi umal deegaankaasuu ka soo jeeda waa dadka soomaali ugu sharafta badan ugu akhlaaqda badan diin ahaan iyo dhaqan ahaan baa halkaasii ka soo jeeda marka carruur yar yar oo gabriga xamaarada iyo meelaha ay askartu joogto waxa weeye joogi jirto tuulo jooga ayaa la ururiyay marka dadkii noocaas ahaa qaar badan baa lala qabtay oo dee magacyo taytaladesita wasiir hebel la leeyahay oo magaciisa hebel la leeyahay marka runtii waxaan rabaa inaan laba arrimood haddii aynu qodobkaa ka nimaadno adoo aad ugu mahadsan kaa dhex galaya su-aalka labaad baan ku weydiinayaa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaa degan 36 reer baa degan iyaguna xubin ay ka yihiin reerka la yidhaha ogaadeen marka 36kaasi reer ee degan dowlad deegaankaasi ogaadeenkuna uu ka yahay qabiil ka mid ah oo qabiilka 36aad uu yahay deegaanadu degan inaynu garanano madaxweynayaashii soo maray dowlad deegaankana aynu garanano intii si la isku soo bedelayay iyo nidaamkii wanaagsanayay qor isku dhiibka ahaa ee xalaasha ahaa maanta maxaa keenay in xukunka lagu dheganaado oo oona nafta lafteeduna calankii Soomaaliya ay tiraado waxaan ka taagnaa jigjiga iyo arrimaha noocaas bal ummadda way iftiimiyo Oromaan la istilayaa iyo waxa arrimaha keenay maanta horta anigu reegayga waxa la yidhi Soomaalida waxay tiraahdaa leen aniga yidhi baa la yidhi iska reey anigu waxaan aaminsanay nabiilo dadka Soomaaliyeed Soomaali galbeed degan waa hal qabiil 36 ma aha waa hal aniga aragtidayda صح hal qabiil
oo odayaal Soomaaliya ku kala abtirsada odayaal Soomaaliya oo magacyadoodii sita laakiin ummad qura waa gartay qoomiyadaha tirada badan ee dalka Itoobiya degan waxay ka mid tahay Soomaalidu qoomiyadaha marka la bombar dhigo haddii aan la ka dhigayo axmaarada iyo nimanka la yidhaha Oromada oo kale iyo loo fiiriyo qoomiyad yar weeyaan oo kooban Soomaalidu weliba marka aad fiiriso cultural barrier-ka u dhexeeya iyaga iyo qoomiyadaha kale oo runtii afkoodana aanay aqoonin dad isu aqoonsan inay Etoobiyaan yihiin aad fiiriso waxay noqonayaan in dadka reer Itoobiya oo dhan mid laga dhigay iyaguna su'aasha aynu isla garanay inay hal reer yihiin halkaaga waan soo socdaa meesha aad weydiisay marka Itoobiya inteeda kala dhan meel la dhigay Soomaaliya waxay noqonaysaa marka dad yar oo kooban waayo waxa ka dhigaya ideolojiyada iyo fikirka ay aaminsan yihiin iyo dahaadhka u dhexeeya iyaga iyo dadka kale reer Itoobiya si kasta oo qofku Soomaali u yahay Itoobiya intuu doono uu joogo waxaad moodaa inuu ajnabi ahaan oo kale xisaabsan yahay isaga laftarkiisu niyadda uma sii daayo nidaamka Itoobiyanism waayo mar walba waxay rajo ka qabaan inay dalka Soomaaliya hore uga mid ka ahaayeen ay ku biiraan haddaan u soo noqdo markaa dadka qaba fikirka iyo aragtida ah in dhulka Soomaali galbeedna magac qabiil loo bixiyo hadda hadalkayga u fiirsada ilmaadeen anigu waxaan ahay ninka aaminsan inaan 36 qabiil ummadda Soomaalidu aanay ahayn wan qabiil inay yihiin baan aaminsan weliba halkaa markaynu joogno duruuf gaar ah oo isku kiinsi oo qasab ummadda Soomaaliyeed isku qasbaysaa taan ka soo warramaya marka dadyo wale meeshan ogaadeen ayaa la yiraahdo Ingiriisi baa u bixiyay oo dhulka loo yaqaan ee sheekada maartaan macnaha badan ku dhisnayn ka hadlay iyo kuwa maanta shalayna lahaa waxaanu nahay gobonnimo doon oo xornimaanu raadinaynaa maantana haddii alla ka dhigayo jilbaha haystay cabdi ilay iyo Tigray lahaa maxay u dhacayaan nasr ilaahay noo soo diray bay ahaayeen one of the greatest hero ayuu ahaa on and off baa maanta afkeeda laga hayo waa mid subxaanallah marka arrintaa waxaanu u qaadanaynaa inay tahay haddii alla ka dhigayo arrinaan dee sax ahay marka waxaan ugu nastaaxaynaynaa dadka walaalaha ee Soomaaliyeed fikradaha noocaasa qaba dhulkani waa dhul Soomaaliyeed anigu hadda imaka intaan fuudhu qaato mitirin maayo halkana reer hebel degay sidana la yahay oran maayo afkay ka soo bixi mayso waxaan leeyahay dad Soomaaliyeed oo isku mid ah halkaa degan uma baahna qaybin iyo abtirsiin uma baahna waxay u baahan yihiin inay iyaga ka timaado haddii Ethiopia international waxa way qaybka caalamiga la fiirinayo international looga la fiirinayo Ethiopia ka mid yihiin horena loogu feel garoobay isku dawladda la doonayay in Soomaaliya ay xoog dhulka kula soo noqoto balka warrama haddii dadka Soomaalidu sidaan anigu qabeen aanay noqonin dad loo yeedhiyay Ethiopia-nimada iyagu laftarkooduba xukunka Ethiopia iyo talada Ethiopia la qoomiyadii hore u haysatay way naga yaratay dad ka yar bay ahaayeen Soomaalidu qoomiyadda Soomaalidu dalka Ethiopia duudu sidaan ahaan maysa isbedel baa imika bay yimid isbedel waliba kan ka sii weyn baa iman doona dadka Soomaalidu siyaasadda Ethiopia ha dhex galaan talada dalka inay qabtaan iyagoo Soomaaliya laakiin hadda ogow shalay Tigray wayna qaybisay dadka Soomaaliyeed cadaadis baa la saaray dadkii Soomaaliyeed la yiri ka guura dalka ayaan anigu ka soo jeeda waxba kuma lihidin waxaan ka mid ahay dadkii Soomaaliyeed ee Minneapolis iyo Canada iyo Europe markii dadkooda la laayay xafladaha loo qabanaya lahaa waxaanu taageersanay Ethiopian dadku laayay anaguna Ethiopian baanu kuwaasina waxa weeye xuduudaha ay ka soo gudbeen 600 years ugu dambeeyay meesha ay deganaayeen haddii alla ka dhigayo lahaa dalka waxba kuma laha marnaba anigu markaa maanta inaan haddii alla ka dhigayo dadka si badan ka qaba baa jira inay yiraahdaan war oromada dalka qabsatay anagu dadkii la leynayay sidii noo kala aanu nahay kuwiina leynayayna waa kuwane annagana soo dhaweey kuwana fogay anigu dhihi maayo anigu waxaan leeyahay in kooban oo asi qaldan u fikirayso moodaysa in Tigray weligeed dalka xukumayso oromada weligeed dalka xukumi maysa doogaad hadda maanta qaar istiraadaan oromada dalka qabsanayso ogaadeenna halayso wadda kale Soomaaliyeed ha soo dhawayso oromada weligeed dalka xukumi mayso kuwii shalay lahaa oromadu Tigray waa jibirta oo isku qabiil baan haddii alla ka dhigay dahabka ugu geeyay Tigray meesha la yiraahdo Cabdi Ilay ugu diray dahabka maqale meesha laga maqale kuwaasina way qaldanaayeen kuwa maanta sidoo fikirayaan oo anigu dhexdaan taaganay nin Soomaaliya baan ahay wayahay
muxuu kaga duwan yahay madaxweynayaashii hore muxuu kaga duwan yahay cabdi ilay ee la bedelay cabdi ilay waaniga yidhi xadiiskii nabigu ku safoobay calayhi salaatu wasalaam kullu qoom laha fircoon qoomkan soomaalida fircoonkii ka dhashay boqolkii sannadood ugu dambeeyey buu ahaa waayo wuxuu ahaa hooyadii dile saddexdii kufsade wuxuu ahaa ninka damiirkiisu garwaaqsaday inuu intuu dad soomaaliyeed la yidhaahdo ka dul dhaantay ciidamada yaryaraaya new booliska ay u bixiyeen tigreeg uu maamulayay wuxuu ahaa ninka intuu laayay niman soomaaliyeed oo urkaa ONLF maanta durbaqiira jabaantii isagii u baroortay markii ay isiraahdeen cid kale oo Soomaaliyeed oo aan xaafadda ahayn baa meesha imanaysa intuu soo qabqabtay oo uu laayay meydkoodii ku tafsiiray darbi weyn yiri qof walba cagta saar si uu u raali geliyo halkuu Ilaahay raali gelin lahaa subxaanahu wa ta'aala si uu Tigreey u raali geliyo ninka noocaas buu ahaa wuxuu ahaa shakhsi aanan cimriga inta noolaa ummadda Soomaalida aanan aaminsanayn inuu hore u soo maray dib inuu soo maray su'aal badan bay dadku isweydiiyaan su'aal ay ku wad dhameysay waa fahmay kuwa xafladda Mareykanka ku qabanayaan waa dad baa leeyahay absolutely oo maanta aan faani karnaa aan ogaadeen laftiisa ururkan ogaadeen laftiisa dad badan baa waxay leeyihiin waa reerka kaliya ogaadeen weeyaan ayaa jabhadda samaystay ogaadeen ONLF meel ay ogaadeen kula dagaalantay ciidamada Ethiopia oo islaayeen lama hayo sida wararka xaqiiqada aynu ku hayno oo jabhadii ogaadeen iyo ciidamada militariga Ethiopia isku dhacay ama jabhada laga guuleystay ama ciidamada ha guuleystaan lama hayo baa leeyahay 40 sano ay dagaalamayeen marka ma la oran karaa Soomaalida lafteedii baa la isku jabiyo la isku dilayaa oo la isku soofaynaya waxa weeyaan anigu imaka ma rabo inaan ururka ONLF waxba dhaliishiisa ku fogaado sababtuna waxa weeye ururka ONLF horta runtii sida uu ku yimi haddii aan la ka dhigayo ku dhawaaqistiisa iyo bilowga iyo boorka jifadiisa u dambeysay 94kii bilaabantay horaantii sagaashameeyadii dadka Soomaaliyeed taariikhda deegaanka ayaa si wacan bay u wada garanayaan xusbi baa ka jira talada Soomaalida hayay ismaamulka Soomaalida Ethiopia dad far badan oo Soomaaliyeed xusbiga ONLF markaa wuu xanaaqay wuxuu yiri talada cid kale oo Soomaaliyeed baa qabsatay annagu magacayaga qabiilka baan la baxaynaa dagaal baan galeynaa dagaal baan ku xigtaa saasay ku baxeen niman ka baxay waa xaqiiq weey cidina yaanay dhibsan niman ka dagaalamay Ethiopia iyo rejiimkii yimi ma yahayn niman diiday haddii alla ka dhigay nidaamkii markaa dalka ismaamulka Soomaalida xukumayay uu haddii alla ka dhigayo oo uu ahaa founderkiis ama haddii alla ka dhigayo mishiinka rogaya uu ahaa Allah u naxariistay ambassador Cabdilmajiid Allah u naxariistay ha runtii ayaa maaragtaanay ayay ahaayeen intii ay dagaalka ku jireen maadaama ay ummadii Soomaaliyeed ballaanayd oo dhan ka baxeen oo yiraahdeen waxaan nahay qabiil u dagaalamaya Soomaaliyeed dhulkii ay dib u xoreeyaan oo fikirkooda ay ku baxeen ka hore aan ka soo waramay oo ahaa inay runtii guulo waaweyn oo wax koola soo hooy waa arrimahaas ugu wacna waayo haddii aad tiraahdo reer baan anigu haddaan iraahdo imaka ninka xaj sabaan ahayo magacaygan ku dagaalgalaya Ethiopia kula dagaalamaya dib been baan naftayda u sheegay nin Soomaaliya baan ahay haddii la doonayo dhulkaasi inuu xorobo waa in dadka Soomaaliyeed isu yimaadaan isla qaataan u halgamaan hadday qalin tahay iyo siyaasad iyo hadday qori caarid tahay laakiin waxa weeye in shirka kacba la isiga yara marka runtii iyaga la tirkooda dhibaatooyin fara badan baa soo gaaroon qirayo aad iyo aad baan uga xumahay in maaragtaan cadaadis fara badan Soomaalidu ku haysayo raggii mucaaradka ahaa ururka ONLF waxa rag badan laga dhiibay magaalooyin badan oo Soomaaliland ka mid tahay Hargeysa magaalada Hargeysa sagaashanaadkii markay bilaabmeen laga dhiibay maxamed xaween maxamed jibraan cigaal ugu horreeyay ninka ugu horreeyay dhiibay uu ahaa waa foolxumo weyn waan xambaaraynaya waxaanay la mid tahay ficiladan imaka ay sameeyeen inay ilay iyaguna runtii mid xubay kaga jawaabeen waxay yidhahdeen waxa la wixii gaadiid ka imanaya haddii alla ka dhigayo dhul fara badan baa laga dhiibay laakiin beesha kaliya Soomaalida ay baabuurtoodii iyo hantidoodii yiraahdeen halala dagaalamo markii ay isu dhiibeen nidaamkan Ethiopia oo naftoodii badan dawaatay xarotay ay runtii laayeen lahjadooda ay fiirin jireen yaa tahay mustawqaad kala jeexi jireen waxa beeshaas haddii alla ka dhigay guud ahaan marka ay saan dhalinyarada arrintaas waa dad walaahay anagu waan jecelahay runtii waxa weeye wixii hore u dhacay oo dhan khaladaad ahaa ama dilistaan ama dhibaatooyinkii inay geystay ha noqoto oo runtii iyaga laftarkooda beesha laftarkeeda waa baabiyey reer dhan oo reer Isaaq la yiraahdo oo ahaa baarqabka ogaadeen
hadday noqoto gabay iyo hadday noqoto magaciis iyo hadday noqotay talo oo dee niman haddii alla ka dhigayo dee madaxa runtii oo anigana igu weyn maadaama yihiin dadka aanu haddii alla ka dhigayo soomaalidu isugu deegaan dhownahay isugu dhaqan dhownahay aad iyo aadna aan u jeclahay run ahaantii waa la baabiyey reero badan oo haddii alla ka dhigayo isla ogaadeen ka dhexi reer cabdillah xataa reer warfaa nimanka la yidhaahdo hadalkooda badaa dad badan oo ogaadeen oo la baabiyey baa jira way ka dhirigsanay bal ka waran haddaba bal aan siyaasadda deegaanka u soo noqono bal waxaad nooga warantaa haddaad war ka hayso shirka diri dhaba ka dhacaya ها aad iyo aad iga raalahaada waxa connection-ka yar cuslaaday run ahaantii waraysigaasi iyo dad kale oo iyaguna aan fikirkooga weydiinanaa way jiraan dhammaantiin sii sheer garay oo sii gudbiya inagoo raaliya xaaladihii ugu dambeeyey dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya haddii aynu ka dhawaajino xubno oo ay ka mid yihiin garbihii uu ku duuli jiray madaxweynihii hore dowlad deegaankaasi soomaalida Itoobiya cabdi maxamuud cumar oo xalay saqdii dhexe saddexdii habeenimo duubcas militariga ee federaalka Itoobiya ay ka qabteen xarunta madaxtooyada waxaana la geeyay xero la yiraahdo Garbacas oo ku taala duleedka magaalada Jigjiga oo ciidan aad u fara badan ay ku hareeraysan yihiin iyadoo la filayo in diyaarad lagaga qaado helicopter-ta nooca loo yaqaano lagu geeyo magaalada caasimadda Addis Ababa ee Itoobiya geesta kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Itoobiya Dr. Ahmed Shide oo shir jireed ku qabtay magaalada Jigjiga gudaheega ayaa waxa uu sheegay in cid kasta oo sharciga jabisay iyo cid kasta oo sharciga ka hortimidba la marin doono mudankii ay lahayd ee sharciga ay ku jabiyeen in xuquuqul insaanka hay'adahana lala tiigsan doono iyo maxkamadaha on cidna lagaga hari doonin dhibaatooyinkii faraha badnaa ee soo jiitamay ka taagnaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa iyaduna la miilaawaana in magaalada Jigjiga ay cakran tahay oo meheradihii la boobay iyo dadkii hantidooda la dhacay ay weli haatan xidhan yihiin oo la bilaqaystay saad ogsoontihiinba bilaqo xoog weyn baa ka dhacday maalintii sabtida ahayd ciidamadu soo galeen magaalada Jigjiga dad baa hantidoodii dahabkoogii naftoodii iyo maalkoogii baa magaalada Jigjiga lagu baabiyey dadkaasi oo la bartilmaamaysanayay sida ila xoogogaal aanu ku helano dadkaasi la laayay waxay ahaayeen dadka loo yaqaano jaarsada ali madaxweyne dir oo iyaga si gaar ah loo beegsanayay waxaan leenahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto inta nool ee ka badbaadayna waxa kulley ciidamada militariga saaka iyagu aad u xoogan oo fara badan baa Jigjiga ku xeeran oo ilaalinaya cidna cid uma gudbaso cidna cid wax ma yeelaso ciidamada new police kala oran jiray ninkii u sareeyay isna waa la qabtay waxa la raaciyay ninka la yiraahdo cabdi maxamuud cumar ciidamada new police-ka iyaga laftooda xerooyin baa lagu ilaalinayaa oo dhaqdhaqaaqii waa loo diiday dawladaha hadday tahay wasaaradihii iyo hadday tahay madaxtooyadiina way xidhan tahay Jigjiga laydhku waa ka go'an yahay internetkuna waa ka go'an yahay wax maamulo oo ka shaqeynaya haba yaraatee ma jirto ilaa kadib odayaasha deegaanku isku yimaadaan dhammaan reeraha wada degan Soomaalida Itoobiya oo dhan degan isku yimaadaan ka bacdi waxa la soo dooran doonaa marka hoggaan cusub oo raali laga yahay reer kasta iyo cid kasta oo wax tabanaysaana laga shaafiyo la horgeeyo xukunka dadkii dhibaatada geeyay ka bacdi waxa iman doona xukuumad cusub iyo madaxweyne cusub oo Soomaalida deegaankaasi midayn doona waa sida wararka ilaa saxda ah ee Jigjiga telefoonadii aan u dirnay aanu ka helano maanta u dhameysay warar beena oo la fidiyay oo social media lagu fidiyay oo la yiri wasiirkii wasaaradda maaliyadda yarkii yara dhalinyarada ahaa ayaa laga dhigay madaxweyne ku sii hayna arrimahaas waxba kama jiraan waa been sil iyo raatoona lahayn waxa ku fashilantay idaacadda weyn ee loo yaqaan BBC-da oo noqotay mid haddii shilin aad ku shibatid aad waxa doontid ka dhex oranaysid aad ma aad ka hadlaysid waa xaqiiqtaas waxa ku cadeynaysa wasiirka wasaaradda federaalka Itoobiya ninka la yiraahdo Master Ahmed Shide
ahna afhayeenka ra-iisul wasaaraha etoobiya doctor abiy axmed ayaa shir jirayd maanta uu qabtay videogoon soo geliyay pagekeyga inaad aragteen mooyaane isagoo maalintii hore shalayna ama maxaari buu ku hadlayay maantana af soomaali buu ku baahiyey warka meelna kumuu sheegin in madaxweyne la doortay meelna kumuu sheegin in cid kale oo maamulo la keenay laakiin waxa uu sheegay in ciidamadu gacanta ku hayaan magaalada jigjiga iyo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxa uu sheegay inay haatan imika degan tahay waxa uu sheegay in nidaam cusub iyo odayaashii iyo wax laysku soo ururinayo la qaban doono doorasho markaa doorashada la galana hoggaan cusub iyo xukuumad cusub la keeni doono marka wararka miidiyaha lagu faafinayo ninka dhallinyarada lagu faafinayo waxaa laga bayaabaa saddexdii xalay habeenimo nimankii la qaaday inuu ku jiray cabdiiley lala kaxeeyey soomaaliya oromo isdila saare ma jirta xad bay kala leeyihin kiliradu oromaduna xad bay leedahay maamul baa maamula soomaalidana xad bay leedahay maamul baa maamula labadana federaal baa maamula ciidamada federaalka markaan ku leeyahay anaa soomaaliya ku jira canfari baa ku jira amxaari baa ku jira cid walba way ku jirtaa marka magaaladii jigjiga dhibaatadii ka dhacday hantidii shacabka lagu boobay dhalinyarada la yidhaaha heego iyo dhibaatadii ay geysteen iyaga laftooda qaar waa laga qabtay waana la hayaa kuwo kalena oo lagu daba jiraa ilaa haatan dadkaana hantidoodii waa loo soo celinayaa waxayna ku naf waayeen dad badan caruuro leh maatiya leh guryaha loogu daatay baa jira weli waxaan ka dhicin dhul soomaaliyeed ayaa ka dhacay magaalada jigjiga maalintii sabtida ahayd ay soo galeen ciidamada xoogga ku qabanayeen marka dadka waxaan u sheegaynaa haddaba in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan ilaahay wuxuu yidhi amni waliimaan amniga waxaa ka horeeya iimaanka waxaa ka horeeya iimaanku qofku helo amnigaa ka horeeya marka amni la helo ayaa salaad la tukadaa marka amni la helo ayaa qur-aan la akhriyaa marka amni la helo ayaa la tasbiixsadaa marka amni la helo ayaa ilaahay la baryi karaa inta xaalad nabadgelyo darray taagan tahay iimaan lama helayo marka amni wal iimaan waxaa horeeya amnigaa horeeya amniga waa in ay ilaaliyaan dadku haddii ay ilaalin waayaanna ciidamada xooggan ee ilaa maanta kusoo qulqulaya jigjiga waxay u geysan doonaan dhibaatooyin qofkii madaxa la kaca etoobiya maaha meel cid gaari ama 30 qof oo dhalinyari nabadeeda khalkhal gelinayso cabdi ilay iyo maamulkiisu kagama duwana maamuladii hore ee la bedelay imise madaxweyne la soo bedelay waxa la soo bedelay nin Isaaq nin Samarona nin Ciisa boqol madaxweyne la soo bedelay marka maxaa maanta keenaya in buuq iyo siraad la sameeyo iyo in la yiraahdo meesha annaga la wan goosanana adigoo la garanayo inaad boqolkiiba 15 ka tahay dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya كورسيga markaa isbedel baa soo socdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.